Adriano waxa uu haystay wax kasta oo saamaxaya inuu noqdo ciyaartoy dhammaystiran kaasi oo laga yaabay orodkiisa, awoodiisa jidheed iyo farsamadiisaba. Waana ta keentay in magaciisa ay ku hadaaqaan malaayiin da'yarta kubadda ciyaarta ee ku noolay daafaha dunida. Halkan daawadayaal waxaan idinku soo gudbinaynaa qormo la magac baxday boqorkii dhacay. waxaa lagu waday inuu noqon doono beddelkii laacibkii weeraryahanka weynaa ee reer Brazil ee Ronaldo, gaar ahaan xilligii uu dhaxlay booskii Ronaldo ee Inter Milan. laakiin wax kastaaba waxa isbedelay markii ay si kadis ah ula kulantay sanadkii 2004 dhacdo uguba taasi oo gabi ahaanba noqotay dhacdada xanafta leh ee maankiisa iyo miirkiisaba rogtay, isla markaana majaraha ka duuday yoolkiisii nololeed ee ku aadan inuu noqdo mid guulo waaweyn ka gaadha caalamka kubadda cagta. dhacdadaasi galaafatay mustaqbalkii ciyaaryahan Adriano waxay ahayd markii uu si kadis ah loogu sheegay inuu aabihii u geeriyooday wadna xanuun si kadis ah ugu soo booday. waana xilliga ay u bilaabmeen riyooyinka googooska ah ee murugadu sida uu qirayo ciyaaryahan Javier Zanetti oo isku soo gaadheen kooxda Inter Milan oo ay ka dhisan cariga waddanka Talyaaniga. markii uu gacanka qabtay Adriano telefoonka warsidaha ay sheegaya dhiilada geeridii aabihii, waxa uu noqday mid gabi ahaanba isbedelo oo ay u qaadan waa ku noqotay dhimashadii aabihii. waxaanu bilaabay oohin aan kala go' lahayn sida uu sheegayo Javier Zanetti oo xoogaal u ahaa duruufaha soo food saaray xilligaasi. niyadjabka soo wajahay ciyaaryahan Adriano oo ay ka xoog lahayd warbaahinta dalka Talyaaniga iyo dalkiisuba waxa ay dhabarka u saareen mushkilad farsamo oo xagga awoodiisa jidheed ah oo isbedeshay iyadoo ay awoodiisii muruqs dhintay. xilligaasi waxa uu noqday mid ka soo xaadiri waaya tababaradii iyo kulamadii diyaar garowga kooxda Inter maadaama oo ay la soo daristay murugo aad u xanuun badan, iyadoo taasina u horseeday inuu noqdo mid si xun u isticmaala maandooriyaasha kala duwan ee mamnuuca ka ciyaartooyda. waxaana dhacday in tiraba dhowr jeer lagu soo eedeeyo dacwado la xidhiidha isticmaalka daroogada khatarta ah iyo inuu ku lug leeyahay la shaqaynta kooxaha khatarta badan ee maafiyada dalka Talyaaniga. muddo 3 sano oo ay lafihiisa feentay niyadjab, hanqaaran iyo jahwareer soo wajahay waxa uu ku kaliftay inuu dib ugu noqdo dalkiisii hooyo. waxaanu isku dayay inuu ciyaaro kooxdiisii hore Sao Paulo, laakiin muu noqon Adriyaanihii ay yaqaaneen. waxaanu halkiisii ka sii bilowday isticmaalka mukhaadaraadkiisii iyo tumasho taasi oo kaliftay markii dambe inuu noqdo beediye baralaawe iyadoo ay ka dhamaatay dhaqaalihii uu ka soo xoogsaday kooxihii Yurub ee u ciyaari jiray. muddo 10 sano ah oo uu ka gidaareynay jiray laamiyada iyo sekadaha madmadow ee magaalada Sao Paulo, isla markaana uu liishaanka kamaraduhu qaban jireen isagoo ku nool isku raranta magaalada Sao Paulo. waxay markaliyan warbaahinta dunidu ka warheshay sanadkii 2017 in ciyaaryahan Adriano ka mid noqday oo ragga ugu sarreeya ku jiro koox lagu magacaabo Red Commando ama Commandooda Cascas. kooxdaasi oo maafiyada ugu khatarta badan dalka Brazil, taasi oo ka ganacsata xashada iyo mukhaadaraadka kala duwan. waxaana uu dhowr jeer lagu soo eedeeyay inuu ka ganacsado noocyada mukhaadaraadka isagoona la sheegay inuu madax ka yahay kooxdani maafiyada ah ee lagu magacaabo Commando Formalo ama Red Commandos. haddaba mustaqbalkii mar ahaan jiray muraayada la daawaday ee ay jeclaayeen inay ku daydaan dhalinyarada dunida ee kubadda ciyaarta waxa uu isu bedelay mid barab gaashaysan leh oo ay ku dambeysay taariikh madow.